بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد إلهي baa kelidii mahad leh maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bishii 2026 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waxa uu soo saaray wareegto madaxweyne oo nuxurkeedu yahay magacaabid wareegtada madaxweynuhuna waxay u dhigan tahay sidan markii aan arkay qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markii aan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayo-aragnimadiisaba markii aan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalanaysa xilkan markii aan helay warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Israa'iil ee leh tixraaca lambarkeedu yahay eber 40 xariijin 2026 markii aan sameeyay la tashi waxa aan go'aamiyey laga bilaabo taariikhda maanta waxa aan u magacaabay Dr. Maxamed Cumar Xaaji Maxamuud inuu ahaado danjire buuxa oo idman afka Ingiriisigana ku noqonaya Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary oo jamhuuriyadda Soomaaliland u fadhiya dowladda Israa'iil oo leh dhammaan haybadda awoodda xuquuqda iyo waajibaadka ku xusan xilkaas si waafaqsan dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerarka dalka u yaala iyo qawaaniinta caalamiga ah ee diblomaasiyadda Allah mahad leh Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland